Soomaali News maanta waxaynu idiin soo gudbin doonaa hab aad iyo aad u casrisan kaasoo ah runtii ayaanta waxaynu haynay shirkadda isgaarsiinta Hormuud. Hadda waxaynu u wareegaynaa shirkadda isgaarsiinta Somnet. Somnet kolkaynu leenahay waxaa waaye adeegyada ay bixiso ayaan rabnaa inaan idin la wadaagno. Khadka iska xiro si aan liisoo bixin. Maanta waxaynu soo gudbin doonaa hab aad u fudud kaasoo ah runtii adigoo laf Somnet soo gatay si aad isu diiwaangelin lahayd adigoon shirkadda tegin, adigoon time iyo waqti uusan kaa bixin. Intaan ayaad gelinaysaa waxaad leedahay okay waa lambarka Somnetka ma aha Hormuud waynu soo wadnaa qaabka aad isku diiwaangelinayso, laakiin maanta waa Somnet. Haddii aad ku cusubtahay horta channelka marka hore subscribe saa hore waxaynu soo gudbinay qaabka lacagaha loogu shubto iyo weliba lacagaha aad helayso. Waxaan taabanayaa lambar 2 oo ah maareynta. Waxaan kasii dooranayaa isdiiwaangelin oo ah lambar 2. Isdiiwaangelin ayaan ka dooranaa. Waxay leeyahay geli magacaaga oo saddexan. Anigu waxaan gelinayaa magacayga Said Nuur Ali oo keento Said Nuur Ali. Inta badan waxaa dhacaysa in dadka ay dhahaan adeegan ma aha mid shaqaynayo, laakiin isku hubi adeegan lafta aad ku isticmaalayso. Geli deegaanka waxaan deganahay Kaaraan ayaan deganahay Kaaraan. Waan diiwaan geliyay hadda lambarka inkastoo uu diiwaan gashan yahay. Geli lambar laga heli karo. Hadda inta badan waa arrin shirkadda markaad lambar ku qoranayso magac waxa lagu leeyahay lambarkee laga heli karaa 615 ma dhihi karo sababtoo ma Hormuud oo Somnet 8 ayaan leeyahay 68 dheh 5 11 22 11. Okay lambarkan waa lambar hore isu diiwaan geliyay ma aha lambar cusub. Ma hubta magacan Said Nuur Ali ku leeyahay haa imay dheh. Haddaad tiraahdo haa wuu ku diiwaan gelinayaa. Haddii uu hore lambarkan uu ku diiwaan gashan wuxuu ku leeyahay lambarka hore ayuu diiwaan gashan yahay, asaga ayaa kuu sheegi doonaba lambarkan hore ayaa loo diiwaan geliyay. Marka adeega cusub laftaan dadka si makaarada aan ku qoran magaca weeye, magac si fudud ay ugu qoran karaan. Waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doonaan. Channelka hadda ku cusub subscribe saaro.